munaasabadan oo ahayd mid maqaamkeedu aad u sareeyo ujeedkeeduna ahaa xafladda caleemasaarka Zuldan Mustafe Maxamuud Awseed oo maalmihii la soo dhaafay si weyn looga dareemayay qabanqaabadeeda guud ahaanba gobolka Sool ayaa maanta ka qabsoontay dooxada Balli Barwaaqo ee deegaanka Ari Cadeeyo gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay wafuud aad u tiro badan kuwaas oo ka kala yimi guud ahaanba daafaha caalamka waxaana goobta aad uga dhex muuqday madax dhaqameed caanka geyga ay Soomaalidu degto iyo waliba mas'uuliyiin ka yimi maamulka Somaliland ugu horeyntiina waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha gudida qabanqaabada xafladda isagoona ka warbixiyay ujeedka caleemasaarka Suldaanka beeshooda Mustafe waa nin ku caan baxay horumarka iyo wax qabashada dadka iyo gargaaridda dadka masaakiinta ah taasana u sababa in loo doorto Zuldan saad ogtihiin Mustafe waxa la doortay bishii December sanadkii la soo dhaafay oo beesha ay isugu timid shirkan Ayaa Cadeeye oo 100% codka u helay marka la leeyahay 100% ma aha sida nimanka kalitalayaasha Afrikaanka ay yiraahdaan marka doorashadu dhacdo 100% baa ku guuleystay intaasi kadib waxaa munaasabada furay garaadka guud ee gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil isagoona goobta ka jeediyay hadallo isugu jiray dardaaran iyo waano markaasi ku aadan suldaanka cusub ee maanta la caleema saaray waxaan ku leenahay Zuldan ku soo dhawow dhammaan dhaqanka iyo golaha ismada Soomaaliyeed meel kasta oo jooga ku soo dhawow ku soo dhawow waan ku leeyahay dhammaan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo aad u tahay Zuldaankoodina aad tahay maantana halkan ay ku caddahay inaan loo kala harin iyo dariskaba iyo gobolada kale waxaan leeyahay ku soo dhawow inta haddii aan ka gudbo Zuldaanka waxaan leeyahay waan kula dardaarmayaa saddexda baan kala dardaarmayaa oo guddoonka waxa weeye sardaarad waxa weeye ka qaada saddexda waan kula talinayaa saddex waan kula dardaarmayaa waxaan ku leeyahay waxaad iska yeelaysaa gacan buran guddoon jilicsan iyo gareexo gacantaada waa inay fisanaataa waa inay waxa weeye waxna aad waxa weeye kantorosha saddexna waxa weeye waan kaala talinaya waxaan kaala talinaya arkayo anigaale inuu loo noqon maayo aan wax leema yiraahdo qaar ka mid ah isimada dhaqanka Soomaaliyeed iyo madasha ka hadlay ayaa dhamaantood sheegay inay suldaanka cusub ku soo dhaweynayaan golaha dhaqanka isimada Soomaaliyeed iyagoona Ilaahay uga bariyay inuu noqdo mid wax ka bedela xaaladda ay Soomaaliya ku jirto maanta Zuldan waa wili waynakan Ilaahay doorti waaye Zuldan waa ka tiltalweeyahay ma yiridillahu bi khayr yufuqu fi diini waa nin mu'min waa nin islaam waa nin awliye Zuldan عدوة إلهي أكاخبته عمر الديرنا الله كسيو Zuldanka soo dhawow golaha dhaqanka ku soo dhawow insha Allah ta'ala waad nala shaqeyn doontaan waan kula shaqeyn doonaa hadii Ilaahay idmo sida maaragtay imaamku sheegayna waxaan ku talinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiisa in la qaato oo shariicadiisa ku dhaqdo oo dhamaanteen shariicada islaamka aynu ku dhaqanno beeshana waxaan kula talinaynaa Zuldankiina aad doorateen ee aad sidan ugu kharash garowdeen ee aad maaragtay ummadan faraha badan isugu keenteen waxaanu leenahay maqla ergadana ha ku badinino wax laga soo ergoodo oo lagu dhibaateeyo ha sameynina Zuldanka xil weyn baa saaran runtii hawsha maanta lagu caleema saaray hawl adag weeye allaha ku fududeeyaanu leenahay golaha kan dhaqanka ee aad ku soo biirtayna waa lagu soo dhaweynaynaa runtii maanta golo weyn baa ka mid ah xafladdaadana waxa weeyaan daafaha wadanka wadamada Soomaaliyeed waxa Soomaaliga afka Soomaali ku way ka soo qayb galeen farxad weyn bay noo tahay oo sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta walaalaha iyo fiqishini oo Zuldaanka sida loo karaameeyay oo sida loo maamuusay casuumaadii ayna sameeyeen inaanu soo ajiibno oo aanu ka soo kicitino caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waan ku faraxsanahay farxad weyn bay noo tahay qodobka koobaad waxaan u ducaynaynaa oo aan duco ballaaran ku cumaamadnay Zuldan Mustafe Maxamuud Awseed oo aynu maanta madashiisii fadhino Suldaankii jiray jooga Allah inooga yeelo Zuldan taliya Allah inooga yeelo talada Allah u fududeeyo Allah inooga yeelo taasi waa taa Zuldan waxaan ku leenahay mood
Suldaan Mustafe waa laga warramay taariikhdiisa waa taariikh sharaf badan waxay ka muuqataa kumanaanka kun ee maanta daafaha isaga yimid mandaqada oo dhan hadday Itoobiya tahay hadday Soomaaliland tahay iyo hadday Soomaaliya tahay intii lagu guda jiray munaasabadaasi caleemasaarka waxaa suldaanka duubay isimada ugu facwaaweyn Soomaalida ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo afmeeray Suldaan Mustafe Maxamuud Awseed isagoona madasha ka jeediyay khudbad taariikhi ah taasoo soo jiidatay qulubta dadkii ku sugnaa madasha isagoona sheegay bulshada inuu noqon doono mid dhexdhexaad ah maalintii hore waxaan idin reerka markii arrinta soo sheegay waxaan ku yidhi hal arrin baan ku aqbalayaa inay arrintaa ku midaysantihiin daraaddeed ayaan ku aqbalayaa baan ku yidhi maantana waxaan kusii aqbalayaa in intaasoo isin iyo intaasoo mataqaanaa dad badan oo khayr qabaan intay meeshan ka soo qayb galeen ay iigu duceeyeen waa arrin runtii aad loogu farxo oo qiimo badan weeyaan ilaahayna waxaan idinka baryayaa idinkana socodkii aad soo gasheen iyo dhulkii dheer aad ka timaadeen iyo mataqaanaa hawshii iyo tacabkii idin gashay muddadaas aad usoo diyaargaroobayseen usoo socoteen inuu ilaahay ajar iyo xasanaad badan idinka siiyo miisaankiina xasanaadka badan runtii sida walaasha sheegeen ma noqon doono suldaan qabiil ama suldaan beel keliya ku kooban waxaan ahay suldaan Soomaaliyeed mana noqon doono suldaan siyaasadeed insha Allah waxaan noqon doonaa suldaan Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryayaa inuu waafajiyo cadaaladda maanta waxaan aaminsanahay Soomaaliya ama Somaliland ama dhul badan ama dadka Soomaalida ah iyo ummadaha muslimiinta ah dhammaantoodba in ay halkaas dhigtay ama ay dibdhaca ku riday cadaalad darro waxaan nafteeda u dardaarmaya inta kalena u dardaarmaya salaadiintii iyo madaxdhaqameedkii igu horreeyey madaxda maamulada ama madaxda dowladaha waxaan u dardaarmaya iyagana inay ku dadaalaan cadaaladda Samiir Saciid Bile telefishinka madaxa bannaan ee bulsho magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool